madaxweyne Biden ayaa wuxuu mamnuucay 4 wadan dadkooda soo galootiga ah in si sharci darra ku soo galaan Mareykanka xuduudda bariga iyo sidoo kale badda. 4 wadan Soomaaliya ma ku jirtaa mise kuma jirto. غيرت من والبا جوجتا وسلامتهين ومحمد فارح فيديو انا ما لو دغدمان اصحابتها على السوشيال ميديا فكر كيرنا كديبتا ما انتو waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wuxuu ku dhawaaqay barnaamij la yiraahdo The New Humanitarian Parole Program. barnaamijkan uu kaga hortagayo dadka soo galootiga si sharci darra ku soo galaya Mareykanka wuxuu ku mamnuucay 4 wadan khamiistii la soo dhaafay taariikhda markay January 5 2023 ayaa wuxuu mamnuucay 4 wadan in ay batata masasha sharci darra ah dadkooda soo galootiga ay ku soo gali kareen Mareykanka. 4 wadan ayaa waxay kala yihiin Venezuela, Nicaragua, Cuba iyo Haiti. 4 wadan ayaa loo ogolaan doonaa batatanba in ay xuduudda ka soo galaan. haday ka soo galaan madaxweyne Biden wuxuu yiri waa cilnaya meesha ka imaadeen ayaan ku cilnaya. laakiin wuxuu yiri 4 wadan waxaan u ogolahay 30,000 oo qof inaan ka qaato bishii. 30,000 oo qof waxa uu qaadanaya ayagoo jooga Mexico ama meelaha wadamada South America ka soo galayaan ayagoo jooga ayaan app u fureynaa. appkaas ayay buuxinayaan. markay buuxiyaan dawladda Mareykanka way baaraysaa. markay baarto ka bacdi qofkii la qaadanaya waxa la leeyahay qofku sponsor gareey masuul ka noqdo Mareykan 2 sano dooro ama keenso ka bacdi qofkaas la soo qaadaya. 30,000 oo qof ayaa bishii loogu talagalay kaliya dadyoga 4 wadan. waxa xusid mudan sanadkii la soo dhaafay 2,760,000 oo qof oo soo galooti ah ama qaxooti ah illegal in caalamka ka imaadeen soona galeen xuduudaha Mareykanka. qaasatan waxay ka soo galeen badda iyo barigaba. waa tiradii abad ugu badan Mareykan ee soo galooti ee soo galaan Mareykan. sanadkii ka horeeyay 2021 waxaa soo gashay in ka badan 1,500,000 oo qof. sanadba ka dambayso way sii badanaysaa. sababtan waxaa la leeyahay waa xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Biden oo xuduudda ka dhigay open policy inay xuduudda iska furaan. qofka raba iska soo galo imaado caalamku idin laga soo tahriibo dadyoogran iska soo galaan iska soo guuraan. arrinkan ayaa waxaa ku dhaleeceeyay xisbiga jamhuuriga republikaanka ah ku dhaleeceynayay 2 sano la soo dhaafay oo idil ilaa markii dambe xisbiga dimuqraadiga uu luus gareeyo aqalka hoose oo xukumi jiray ilaa in ka badan 6 sano ee hogaaminaysa Nancy Pelosi. hadda waxaa la wareegay McCarthy iyo xisbiga jamhuuriga. madaxweyne Biden marka sanadkan cusub 2023 iyo xisbiga dimuqraadiga waxay fahmeen in 2024 doorasho soo socoto siyaasadoodii immigrationka marka hadda way bedeleen oo iska furneed xuduudda iska furan hadda ka bacdi ma ogolaanayaan. markuu ku dhawaaqay arrinkan siyaasadan wuxuu sameeyay madaxweyne Biden wuu duulay axadii wuxuu la kulmay dhigiisa madaxweynaha Mexico Andres Lopez. waxay ku kulmeen xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhaxayso labada magaalo la isku yiraahdo El Paso iyo Juarez. halkaas ay ku sheekaysteen xuduudda ayay wada mareen. halkaas madaxweyne Biden xuduudda marayo oo la sheekaysanayo patroolka askarta xuduudda ilaaliso. runtii wuu fajacay wuxuu arkay dad badan oo soo galootiya xuduudda siday u dayacan tahay. arrinkan ayaa wuxuu sababay in haddana madaxweynaha Mareykanka markii wada kulmeen madaxweynaha Mexico axadii inay haddana uu Mexico City caasimadda aado. halkaas waxaa ku kulmay haddana mar kale madaxweynaha Mexico, madaxweynaha Mareykan iyo ra'iisul wasaaraha Canada Trudeau, Justin Trudeau. saddexdooda markaa halkaas waxay ku wada hadleen kaliya immigration policy. si dadka soo qulqulaya oo xuduudda soo qulqulaya oo Mareykan soo galaya qaarkood Mareykan joogaya qaarkii Mareykan dina Mexico ee Canada galaan laakiin waxa laga soo galaa Mexico dadka dhan oo soo galootiga. waxay ka codsadeen labada madaxweyne waa madaxweynaha Mareykanka Biden iyo ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau in Mexico shaqo weyn qabato dadkan soo galootiga ka hortagto xuduudeeda military iyo askar badan ku daadiso dadka aan loo ogolaan soo galaan la restrict gareeyo. wadan walba meesha qof walba meesha ku imaana wax naga magalayn waa in batatan bala joodkan soo galayo. dadka soo galayo ayaa waxay ka soo qaxaan amni daro wadankooda qaar argixisay ka soo qaxaan
qaar siyaasad xumo qaar religious prosecution dhammaantoodna asylum ay kasoo raadsadaan maraykanka iyo canada mexico waxay tiri arrinkan waxaa ka qabanayaa laakiin waxaan u baahanahay caawan iyo taageero mexico waxay la tacaalaysaa ururada la yiraahdo ururada daroogada oo waddanka dhammaan arrinba aan ku hayo gobolo badan iyo magaalooyin badan iska xukumo waxay dalbatay hub iyo dhaqaale inay dalbatay waan loo ballan qaaday in maraykanka iyo canada ay siin doonaan taakuleen doonaana si dadkan soo galootiga ah oo caalamka ka imaanayo loo hor istaago ugu dambeyntii soomaaliya dad badan ayaa ka imaado sanad walba ka soo galo tirada way yar tahay dad badan oo soomaali ah oo rag iyo dumar iskugu jiro ayaa soo tahriibo xuduudaha maraykanka ka soo galo ma mamnuucna hadda 4 waddan kuma jiraan laakiin borderka waa la restrict gareynaya mexico waxay ballan qaaday iyo maraykan iyo canada ka wada shaqeyn doonaan arrinkan dadkan soo galootiga hadda ka bacdi waxna looma dul qaadan karo maadaama madaxweyne Biden uu ka cabsanayo 2024 doorashada general election ka dhici doonto inay xisbiga Republicaanka ku guuleystaan ama madaxweyne Trump kii hore uu soo laabto ama qof kale oo Republican u imaado sidaas darteed ayaana keentay in siyaasadda 2023 xuduudda iyo looga hortagayo dadka immigrantska sida cusub loo suubiyo hada Soomaali tahay fadlan digtoonow ka warqab arrinkan haddaad rabtid inaad soo tahriibtid howsha way adkaan doontaa sanadooyinka hore maadaama ay furneed hadda way kasii adgaan doontaa laakiin labadii sano soo dhaafay runaantii way fududeed dad badan oo Soomaaliya ayaa maraykan noogu yimid oo soo galootiya oo soo galeen kuwaas oo ka soo cararay amni darada Soomaaliya ka jirto xisbiga dimuqraadiga waa la eedeeyay waxaa eedeeyeen ururada u dhaqdhaqaaqa qaxootiga dadka soo galootiga ururada liberal organizationka waxay ku tilmaameen madaxweyne Biden iyo madaxweyne Trump kii hore inaysan waxna ku kala duwaneen isku yihiin isku siyaasadda maanta ay keeneen dadkan la cunaqabateynayo oo leeyahay soo galin maraykanka waxay ku tilmaameen in dad soo dhib ka soo carray yihiin waxaana fiican in xuduudda loo furo oo open borderkii hore laga dhigo arrinkan sidaad ogtihiin bilooyinkii lasoo dhaafay xisbiga jamhuuriga dadkii markay soo galaan Texas iyo Florida ka soo galaan basas ayay saarayeen gobolada liberal state sida New York iyo California iyo Boston ayay ku daadinayeen oo bilooyinkii lasoo dhaafay 6 bilood lasoo dhaafay waxay ahayd dagaal baan u dhaxaysay xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga Republicaanka arrinkan dimuqraadiga hadda siyaasadiisa wuxuu ka bedelay wuxuu arkay inuu loosgareeyay aqalka hoose una loosgareyn karaa aqalka sare iyo sidoo kale senator iyo senadkaba 2024 saazaraayada waxay ka bedeleen jagna dalaq ma dhageysan doonaan ka wadaa liberal organizationada eedeymaha ku eedeeyeen haddaba maxay kula tahay siyaasadan cusub ee isbedeshay Biden uu la yimid qusaysa immigrantska maadaama awal uu open border ahaa muxuu hadda u xiray xisbiga dimuqraadiga waxay dhahayaan dadka soo galay xuduudda kama xiranayno waan soo dhaweynaynaa maxaa hadda ku kalifaya inay Mexico ku pressure gareeyaan inay xuduudooda xiraan dadna u ogolaan inaysan soo galin maxaan faarax fikirkiina ka dhiibta videogan dhammaan la wadaaga asxaabtiina haddaad Soomaali tahay oo soo tahriibaysid ogow digtoonow xuduudda way adkaanaysaa sida loo soo galo 2023 iyo wixii ka dambe sidii awal u fududnaan doonto maanka iyo maskaxda ku haya gabdhow wiilalow dadka soo tahriibayo salaamantiin